توقعات مقليسان ما هو كلية رصاص لكن ciidamada ammaanka oo isugu jira booliis military ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee RRU-da oo maanta la soo dhoobay xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya ee deegaanka Garyacawl ayaa waxa ay dad shicib iyo qaar ka tirsan salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal u adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay kamid ahaayeen qoryaha ku durrikiban gawaadhida ama loo yaqaano dhishikaha qoryaha sida darandooriga u dhaca shicibkan ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyo qaar ka tirsan salaadiintooda ayaa waxay saaka subaxnimadii hore u bixeen soo dhaweynta ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi waxaana ay shacabkani iyo qaar ka tirsan salaadiintooda u bixeen inay ku soo dhaweeyaan ugaaska magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal iyo beelaha Samaroon ee ugaaska u yahay si ay uga wada hadlaan xaaladda cakiran ee gobolka soo food saartay ee ku saabsan dhinaca doorashada iyo arrimo kale masaate xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ee deegaanka Garyacawl oo soo dhoobtay ciidamada booliska kuwa militariga iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee RRU-da waxaana ay amar ku siisay inuuna ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi soo gali karin gobolka Awdal taasi oo aanan la garanaynin sababta ay u diiday xukuumadda Soomaaliland inuu ugaasku soo galo gobolka Awdal hasaate saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee iyagu xuduudka ku sugnaa ayaa waxay sheegeen in amar lagu siiyay inuuna ugaasku soo galin gobolka Awdal salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal oo si toos ah ula xiriiray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa waxay sheegeen inuu u sheegay in amarka lagu joojiyay ugaaska ay bixisay xukuumadda Soomaaliland habeennimadii xalay ahayd hase ahaatee oo arintaasi wax ka weydiinayo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi abaar 12 duhurnimo markii ay saacadu ahayd ayaa waxa xuduudka soo joogsaday gawaadhidii galbinaysay ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi iyadoo ay goobta ku wada sugan yihiin shacbiga ku dhaqan magaalada Boorama qaar ka tirsan salaadiintooda iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waxaana loo sheegay ugaaska inuu soo gali karin amar la'aan xuduudka Soomaaliland iyo gobolka Awdalba ishorfadhi badan oo u dhaxeeya ciidamada kala duwan ee Soomaaliland shacbiga gobolka Awdal iyo ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xuduudka la soo dhoobay abaar 12 iyo 20 daqiiqo markii ay saacadu ahayd ayaa waxa ay bilaabeen dhalinyaradii goobta ku sugnayd buuq iyo sawaxan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee goobta ku sugnaa ayaa waxay ugu jawaabeen hubka noocyadiisa kala duwan ee ay ku hubaysnaayeen waxaana inta la og yahay dhaawac halis ah uu soo gaadhay mid kamid ah dhalinyaradii goobta ku sugnayd ee diyaarka u ahayd inay soo dhaweeyaan ugaaska beelaha Samaroon ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi Sakariya Cabdi Sheekh Faarax Sakariya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyal TV magaalada Boorama